السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آد بان idin salaamaya walaalahay company-ga Forever Living Product meel kasta aad kala joogtaan. Maanta waxaan soo duubi doonaa oo aan idin soo gudbin doonaa barnaamij ku saabsan sida loola tacaamulo ama loo xalliyo caqabadaha ka soo noqda inta badan caqabadaha inaga soo noqdo macaamiisha. Sideedaba qofka marka uu doonayo inuu ganacsado noqdo ee waliba uu ka baac mushtariyo alaabteenan herbalka ee quality-ga leh waxa laga doonayaa inuu ahaado qof runtii u diyaarsan isla markaana diyaariyay in badan fahmay waxa uu ka shaqeynayo marka ganacsiga marka gacanta uu ku hayo. Sideedaba ganacsigeenu waa ganacsi herbal oo quality ahaan sareeya oo wadan ahaan wadanka soo jeeda wadan la hubo tayada alaabta uu soo saaro aynu garanayna uu yahay. Sidaa darteed kalsoonida inagu aynu qaadanayna waxa weey inaynu dhisno oo xoojino xirfadeena suuq-geynta. inaynu dhisno oo aynu xoojino xirfadeena suuq-geynta waxay naga caawinaysaa inaynu helo maalin walba macaamiil cusub oo soo taraysa oo maalinba maalinta ka dambaysa soo koraysa. si aynu helo hadaba macaamiil maalinba maalinta ka dambaysa soo taraysa oo soo koraysa waa inaad adigu maskaxdaada korinaysaa maalinba maalinta ka dambaysa. waa inaad adigu documentary ahaan qalab ahaan aad u diyaarsan tahay inaad ka jawaabi karayso su'aal walba kaaga timaada macaamiilkaaga. waa inaad adigu taqaano ama lagu wajaho qofka macaamiilkaaga. macaamiilku mar walba adigu marti ku yahay. macaamiilku mar walba adigu ku naawilaya waxa uu ka cabanayo inaad la xalliso. macaamiilku mar walba adiga wuxuu ku soo doorbiday inuu ku ilaashado alaabtan aad iibinayso maqaarkii, inuu ku ilaashado caafimaadkiisii, inuu ku ilaashado miisaankiisii, inuu ku ilaashado awood dhisitaankiisii. sidaa darteed mar walba leader u diyaar garow inaad adigu marka hore isqalabayso, aqoon isku qalabee oo waxaad isku qalabaysaa kalsooni isku qalabee oo waxaad isku qalabaysaa sabir isku qalabee oo waxaad isku qalabaysaa dulqaad isku qalabee oo waxaad isku qalabaysaa inaad u diyaar garowdo inaad in fara badan ka tanaasusho waxyaabaha ku liidaya ee adiga hoos ku dhigaya. naftood hurdada u ogolaan weydo, naftood fadhiga in fara badan u ogolaan weydo, naftood in fara badan sheekada ka goyso, naftood in fara badan la tacaashaa waxay keensanaysaa inaad adigu iska adkaato isla markaana aad noqoto qofka loo baahan yahay ee baahida ugu weyn loo qabo si uu u guuleeyo dad fara badan oo kale. sidaa darteed ahaw qofka mar walba ku dagaalamaya inta uu soo jeedo iyo inta uu magaranaysaa businesskiisa iyo shaqooyinkiisa dhex joogo iyo marka uu ka maqan yahayba isagoo isqalabaynaya. adigoo isku qalabaynaya markaa in cabsida aad la dagaalanto, isu qalabee inaad cabsida ka takhalusto, isku qalabee inaad adigu noqoto qof kalsooni badan ka qaba naftiisa iyo waxa uu ka shaqeynayo. ahaw qof marka